waxaan ku hadlaynaa maanta waa dhaqaalaha iyo qodobka dhaqaalaha horumarintiisa. waxaanu ognahay inaanu nahay dal yar oo curdun oo sidiisa isu waday itraafkiina imika dhowr bilood haysta bishan iyo bishii ka horreysay haysta qalbarkeeda haysta. waxaanu ognahay lafdhabarta dhaqaalaheena inuu ahaa xoolaha nool. xoolihii noolaana waynu ognahay halkii marayaan iyo abaaraha jiray iyo iyadoo abaaraha ka hor dadkiiba ay ka yimaadeen magaalooyin soo galeen. magaalooyinka soo galeen waxaanu ognahay in sixir barar jiro oo dadkii barakac gudaha ku dalka gudihiisa ku barakaco ay badan yihiin. dadkaasina aanay goyn karin mucaashada maanta taalla iyo ganacsatada iibso. waxaanu ognahay in ganacsatada iyo dawladnimadooda kala horhana qaadeen oo ganacsatada ku horeysay. ganacsatadu waxay jeceshahay iyadu wax ay soo qaado oo halkan ay dollar saarto aanay dhulkana waxba gelin. waxaase ugu ficnaan lahayd iyadoo dalka wax soo saar geliso bal ala aqal warshado yar yar oo markay imka tamaandhada iyo alaab wax yar yar u baxaan dadka wax yar lagu farsameeyo oo tamaandhada dibadda ka imanaysa qasaacada la yiraahdo bacaa yar ku jirta halkan loogu farsameeyo inay keenaan bah mayse keenin. waxaanu arkaynaa kale in maanta dalkii ugu horreeyayna itiraafeen kolley insha Allah kuwa kalena ku xigi doonaan oo fara badani dhaqaaluhu iska iman doona. laakiin waxaanu u baahannahay inaynu sii diyaar garowno habkii dhaqaalaha adduunka inooga imanayo kaynu inagu soo saarayno ay isla falgeli lahaayeen. waxaa jirta oo kale lacagtan wareegaysa hawada ku jirta iyada lafteedu in sixir bararka qayb ka tahay. oo maanta haddaad suuqyada tagtaan shilinka shabay inteena meesha fulidaa in lacag bay iska wax ka shay wax sitaarkiin. marka waxaanu u baahannahay baltaan in banku ka hawl qolo martii dalkii la itiraafay la isu keeno meel la isugu keeno wixii hawada ku jira la ogaado. si loo ogaado waxa hawada ku jira waa banku ka shaqeeyo taana waxa ku soo gabagabayn lahaa mar haddaynu dhaqaalihii ka hadlayno iyo horumarintiisii wax soo saarkeenu aad u yar yahay oo bulshadu dhulka ku foorarsan. maanta waynu arkaynaa caalamkii waxa ka taagan in la soo anjabiyo quwadiyaha adduunku soo anjabiyaan. maraakiibta halka ay ka keenayaan nimanka ganacsatada hadday istaagto saacad ma sii noolaanayno dhulkiina kuma foorarsanayno. intii yareedaynu haynayna wanaga ka kireynay qolyahan maxaa la odhan jiray halkaa wajaale wati qol laga kireeyey. marka waxaanu u baahannahay bal dadku in dhulku ku foorarsado kii mitir haysta iyo kii 10 mitir haystaaba uu wax soo saar sameeyo si aynu uga badbaadno haddii Ilaahay naguma keenay wax dhacaan. ayaynu u baahannahay in dhulku foorarsano. aad iyo aad baa maasantiin waxa ku dar lahaa inta dhaqaalaha golaheena balan hoos u eegno golaha laftiisa wax u tabayaa. kaana u fiirsano. salaam